safaaradda dalka Turkiga ee Soomaaliya ayaa shirkadan shaqada ku wareejisay si dadka Soomaaliyeed ay ugu fududaato helidda adeegyadan kadib markii ay aad u bateen dadka doonaya helidda fiisaha Turkida ee sida maalinlaha u tagayay safaaradda muddadii 2 sano ee la soo dhaafay ee shirkadu waxa ay dadka ugu adeegaysay si ay ku qanacsan yihiin dadka loo adeegaya hase ahaatee arrinta ayaa mar kaliya isbedeshay markii koox dhalinyaraha oo ka shaqeynaya MZ Visa xarunteeda Hargeysa loo soo wareejiyay xarunta Muqdisho ayna iska horkeen ay ka dhex bilaabeen mas'uuliyiinta shirkadda MZ Visa ee Turkida ah iyo madaxda shirkadda ee Soomaalida ah si ay ula wareegaan maamulka shirkadda MZ Visa oo ay arkayeen in dhaqaale badan ay ka sameyn karaan kooxdan oo la sheegay inuu gadaal ka riixayay xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo shakhsiyaad Turki ah ayaa meesha ka saaray dhalinyaradii reer Muqdisho oo muddadii 2 sano ee la soo dhaafay ka shaqeynayay shirkadda waxaana xarunta ka shaqo bilaabay dhalinyaro ku cusub shaqada oo aan loo tababarin ka shaqeynta shirkad caynkan oo kala ah iyada oo ay taasi sababtay gaabis ku yimid shaqadii ka socotay xarunta cabashada dadku ay qabaan waxa kamid ah dad badan oo muddo ka badan bil ka hor xareeyay dalabkooda ku aadan fiisaha ilaa haddana aanan helin baasaboorkoodii iyo jawaabtii xaq u lahaayeen ee diidmo ama helid fiisaha waxa kale oo yaraaday tiradii sida maalinlaha loogu qaabili jiray shirkadda waxyaabaha kale ee hadda ku cusub shirkadda waxa kamid ah lacagta oo lagu qabanayo adeega EVC Plus oo aan markii hore lagu qaban jirin balse uu qofku bixinayo $10 oo dheeraad ah iyo qofka gudaha xafiisyada loogu adeegayo oo isna bixinaya lacag gaaraysa $40 oo aan ku jirin lacagtii sharciga ahayd qaar kamid ah dadka reer Muqdisho oo kulmiye la hadlay waxa ay sheegeen inay arrintan ku dhib qabaan loona baahan yahay in dawladda Soomaaliya iyo safaaradda Turkiga ay wax ka qabtaan maadaama ay dhibaato cusub tahay barnaamijka dhibaatada ka tagan waxa way dadkii fiisaha bixin jiray kartabaalaysan ee u fududeyn jiray howlaha caafimaadka iyo howlaha waxbarashada waxa ka soo dhaxgalay dad dana gaar ah wata dadkaas oo doonayaan inay macnaha ay iyaga la wareegaan shaqadii marka badreemka dad shaqa meel dadka ay wax ku yaqaanaan ay ku soo raadsan jireen hadii inta laga xiro way wareerayaan dadkii waxay meel waxay ka raadsadaan ma yaqaanaan dadkan waxay isku dayayaan in ay helaan baahiyahoodii waxa siday u dabari lahaayeen oo fiisihi ay ku helayeen fiisihiina dad gaar ah waxay isku dayayaan in ay meesha ay la wareegaan dawladda waxaan u baaqay iyo Turkida iyo dawladda Turkiga waxaan u baaqay Turkida fiisiha iyada iskale iyada bixi dawladda Soomaaliya iyada ka mas'uul dawladda Soomaaliya shacabka iyada ka mas'uula marka waxaan ilaha dadka gaarka ee doonaya inay dadkii fiisaha bixin jiray inay kala wareegaan doonayaan inay dadkii macnaha aysan waxba u qaban karin in ay tilaabo degdeg ah inay ka qaado dadkii ay u fududeyso fiisihii soo saaritaankiisii afayeenka dhaqanka beelaha wiye Cabdinuur Axmed Diiriyo oo isna kulmeel la hadlay ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed isha kaliya ee u furan ay tahay kaalmada Turkiga loona baahan yahay in aan la carqaladin kaalmadaas oo dadka muddo ka shaqeynayay shirkadda hawsha waday sida fiican u yaqaan shaqada in loo daayo hawshooda arrintan aad ka hadlaydo oo fiisooyinka wiilashii maaragta ka shaqeynayay kamariga fiisaha cabashadooda way soo gaartay cidda ay qusaydana waa la wadaagnay waxaana leenahay arrinkaas sida anagu noo soo gaaray iyo maaragta xogta aan helaynaba waxay u baahan tahay arrintaas indho dheer iyo maaragta si gooniya ayaan maaragta anagu u daba joognaa oo aan u fiirinaynaa maaragta cidda ay qusaydo na arrintaas waa la wadaagnaa cabashadeeda waxaana leenahay cabashadaas wayna soo gaartay dad kala duwan ay gaartay odayaasheenana wayna soo gaartay wallahi niyo dadka wax la soo darsay way tahay arrintaas aadaan uga xunnahay waxaana leenahay arrinkaas waa si degdeg ah loo xalliyo in qof la dulmiyo ama qof maaragta shaqo asagu uu ka shaqeynayay ama maaragta dadka bulshadan shaqo uu hayay in maaragta hadda si ay gaab gashana waa ka xunnahay maxaa yeelay dadkan shacabkan Soomaaliya sida la ogyahay walaalaha Turkiga waa meesha kaliya isha ay ku hayaan oo haday caafimaad noqoto iyo haday waxbarasho noqoto hadii ay noqoto dara kala duwanba aad iyo aad ayaa maaragta ay muhiim ugu tahay marka arrinkaas cidda ay qusaydo ma waxaan rajaynaynaa arrinkaas xal degdeg in laga gaaro ari iyo geel wax alla waxaan baqtigiisa u tuurnay xitaa dadana baqtiyaal la sheegay halkan lagu sheegay Turkigan xiriirka u dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa soo bilowday sanadkii 2011 markaas oo Turkigu uu soo gurmaday Soomaaliya oo abaar daran ay ku dhufatay waxaana la xasuustaa in madaxweynaha Turkiga
Rajab Tayyip Erdogan oo waqtigaasi ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho oo xilligaasi dagaalay ka socdeen gudaheeda waxaana tan iyo xilligaasi hagaagsanaa xiriirka labada wadan iyadoo Turkiga uu Muqdisho ka furay safaaradda ugu weyn iyo saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin Geeska Afrika waxaana jira shakhsiyaad caynkan oo kala ah oo dhaawici kara xiriirka labada dal.